السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada casharkeenii imtixaanaha noo ahaa ee barashada luqadda Python. waxaa xiisadeenii hore aan ku joojinay halkan. waxaan isu dirnay challenge-ga ayaan xalinaynaa. waxaan rajaynayaa inaad soo xaliseen dabcan ama isku soo dayday haddii wax ka qaldameen, haddii kalena aad soo tijaabisay waxaan dhahnay waxaan qornay sidan addition subtraction, kabacdina waxaan qornay sidan. sida aad dareemi karto dabcan haddana waxaan leenahay printy, waxaan leenahay multiplication laba dhibic comma 10 lagu dhuftay 5. lagu dhuftay calaamadan ayuu isticmaalaa computerku. calaamadan ayuu isticmaalaa star ama asterisk aan lahaa. waxay badanaa ku taalaa 8 korkeeda ay ku taalaa. haddaa shift 8 isla qabato waa isticmaali kartaa. haddii computerka uu keyboardkii uu leeyahay nambaradana si gooniya ayaad haddina u isticmaali kartaa mar kale star. marka star ama asterisk ayaa lahaa. calaamadan waxay ku taalaa 8 korkeeda, shift la qabo, sidaas ayaad ku dhufasho ku heli kartaa. markaa rabta qaybtana waxay noqon doontaa iyaduna sidan division laba dhibic. divisionka computerku sidan ayuu isticmaalaa. waxaan leenahay 10 slash 5 slashkan ama forward slash la dhaho. midna waa gadaal slash iska fiiri. mid noocaan ayaa jiro oo gadaal ah, back slash la dhahaa ama backward slash, back slash. kan horay ah waaye. kan badanaa wuxuu ku yaalaa question mark ama calaamad su'aalka ayay meel iskula qoran yihiin. computer keyboardka ayaad ka raadin kartaa. calaamadan ayaa u isticmaalaa qaybta. calaamad kale qaab kale oo qaybta u isticmaal way jiri doontaa, way noo imaanaysaa hadduu alraa. laakiin for now sidan ayaa ahaa challenge-gii aan idin diray. haddii aan ran dhahno wuxuu ku tusayaa basic math addition 15 subtraction 5 markii 10 laga jaro 5 waa 5 dabcan. 10 markii lagu dhufto 5 waa 50. 10 markii loo qaybiyo 5 waa 2 dhibic eber ayuu ku leeyahay. calaamada qaybta aan isticmaalo nooceeda ayaa eberkan dhibicda eberka keenayso. way noo imaan doontaa hadduu alraa. gadaal ayaan ka sheegi doonaa sababta iyo wixii la midka. marka challenge-gii koowaad aan idin diray sidan ayuu ahaa. qofkii soo xaliyay intan isku soo dayay you are good. qofkii kale u xalismi weysana oo isku soo dayay laakiin adiguna waa fiican tahay, waa baran doonaa hadduu alraa inta aan kusii guda jirno. challenge-gii labaad oo xoogaa aan u malaynaya inuu ka shaqo badnaa wuxuu ahaa sidan oo kale. waxaan ku dhahaa isku soo daydaa in aad soo daabacdo sidan oo kale inaad kusoo daabacdo output window-ga isku day. haddii isagana aan xalino waa iska tirayaa middan. inta aan iska tirin waa iska tirinaa. okay, waxaan sameynayaa ama aan kan dhaafo. haddii aad rabto program kale inaad abuurto, project-ii uu ahaa kan examples, hal program aan ugu abuurnaa. program kale aan rabaa inaan abuurto. tusaale ahaan examples aan tagayaa, right click, waxaan leeyahay new sida hadda aan sameeyo kale, python file ayaan dooranayaa. kabacdi magaca u bixi. tusaale ahaan waxaan leeyahay triangles, maadaama aan rabo triangle inaan daabaco. now si aan u daabacno print bisa isticmaalayna dabcan print aan leeyahay. kabacdi waxaan furayaa single quote-kii ayaan xirayaa. sida aan dareemayo ama aan kuu sheegay 4 sadar waa sadarka koobaad, sadarka labaad, sadarka saddexaad iyo sadarka afraad. 4 sadar ayaan rabaa inaan daabaco. marka waa koobiyeysanaya control C, kabacdina waa badinaya control V. 4 mar ayaan qorayaa. now meesha hartaa ka bilaabi kartaa dabcan, waa tijaabin kartaa, ku celi, ku laabo ilaa ay ku toosto. laakiin hoosaan ka bilaabaya aniga si ay igu fududaato. hoos markii aan ka bilaabo waxaan marka hore aan daabacayaa slashkii adata aan qaybta u isticmaalin oo kale. kabacdina kor ayaan imaanayaa oo soo laabanaya mar kale, space aan leeyahay, kabacdina slash si isugu aadaan. kor aan imaanaya haddana 2 space ayaan taabanayaa, slash ayaan leeyahay. kor ayaan haddana imaanayaa space kale, slash aan taabanaya. marka dabcan waxaa laga yaabaa in xoogaa waqti ugu qaato isku aadinta iyo wixii la midka ah. waxaan rabaa inaan doorto calaamadan badanaa interta korkeeda ayay ku taalaa. shift aad la qaban kartaa. computerka waxaan u isticmaalnaa or iyo wax la markaan logical operators gaarnaan arki doonaa. waxaan taabanayaa hal space aan riixayaa, kabacdi isla calaamadii aan ku celinayaa. waxaan markaan riixayaa 2 space, kabacdina calaamadii aan riixayaa. waxaan riixayaa markaan haddana space kabacdina calaamadii ayaan riixayaa. now haddaa fiiriso intii kore waa keenay, laakiin
hoos ayaa ii dhiman xariijintii hoose ayaa ii dhiman marka meeshaan spaceka aan isticmaalay waa tirtirayaa waxaan rabaa inaan isticmaalo waxa la yidhaha underscore shifty ayaan qabanayaa calaamada equalsha iyo pluska meeshii ku yaalaan calaamad kasoo sokeyso oo jiitin ay ku taalo shifty aan qabanaya kabacdina jiitin waxaan u malaynayaa 3 jiitin ay isu keenaysaa haddaa fiirso waxay u eg tahay wixii aan isu dirnay haddii aan ran dhaho wuxuu ku tusayaa basic math hebelow waxaan rabaa kan inuu isu saaro soo maahan kii hore ayuu soo saaraya aan ku celiyo mar kale ran markii aan dhaho haddaa fiiriso kii hore ayuu ku tusaya marka way kugu dhici kartaa mararka qaar sidan oo kale markii aad program hore aad isticmaalaysay oo aad programkaas ran dhahdo kiyuu isticmaali doonaa ilaa aad u sheegto programka uu ran garaynayo haddaa ku aadiso wuxuu ku leeyahay run fast haddii aan tago triangles meesha aan ku qoray haddii aad ku aadiso muxuu ku leeyahay weli run fast u haystaa marka fast ma rabaa in la ran gareeyo maya triangles aan rabaa in la ran gareeyo dhowr qaaba u sheegi kartaa inaa halkan tagto run oo aa fiiriso wuxuu ku tusayaa still run wuxuu shaqayn doonaa sidaas right click marka dhihi doonaa right click markaanu ku tusi doonaa run triangles aan rabaa inaad ran gareyso marka koobaad mar hadduu keeno marka labaad waa dhihi kartaa run haddaa ku aadiso muxuu ku leeyahay run triangleskii ran garay naa haddaan ran garay triangles aan dhaha dabcan magaciisa laakiin waa triangle hal xabo waa dabcan haddaa fiiriso halkan wuxuu keenayaa shapekii aan isu dirnay shape u eg ayuu keeni doonaa haddaba ku laabo ku celceli tijaabi haddaa shapes kale haddaa keeni karto balka fakar iyo wixii lamidka ah challenge halkaas ayaan kusoo koobaynaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh